hay'adda lacagta adduunka inaan maanta ka nahay xubin la aqoonsan yahay adduunkuna step kaasoon la qaadin cid kastoo doonto inay ama wax nala qabato aysan u furmeen oo qof kastoo aad u tagto marka hore oo conditionka kugu xiraa ay tahay World Bank iyo IMF-ta xiriirkiina soo wanaajiya in qayb muhiima oo deynta maanta laga cafiyay in processkii aan bilaabayno completion point-gana insha Allah ta'ala annagoo sida hadda aan u soconno ama trajectory aan ku soconno haddaan ku sii soconno muddo 3 sano dawladda Soomaaliya deynta laga wada cafi doono albaabo fara badan oo dhaqaalana ay noo furmi doonaan arintaas aadan u soo dhaweyneynaa oo ku faraxsanahay qaybtii aan ka ahayn maamulka Hirshabeellana aadan ugu faanayna runtii dood badan ka jirto deynta ma la cafiyay lama cafin ma la khafiifiyay see la yeelay waxaan rabaa inaan si kooban arintaas aan uga hadlo 1996 ayaa hay'adaha IMF iyo World Bank waxay bilaabeen barnaamij la yiraahdo HIPC waxa waaye Highly Indented Poor Countries Initiative hindise deynta looga cafinayo ama looga khafiifinayo wadamada aadna deyn badan u qaba faqiirna ah saddex process ayaana loo kala qaybiyay processka koowaad waxa waaye in IMF iyo World Bank horta xiriirkii la wanaajiyo oo albaabkii laga bilaabay ayaga waay hadda ka hor waxaan ahayn dad takooran systemka adduunyada aan ka qaybahayn bangiyaduna adduunyada ka xiran LC aan la furi karin adduunyada aan la ganacsan karin wadanka aan la maal gashan karin stepka koobaad marka waxa waaye IMF iyo World Bank inaan tacaamul la sameeyno oo aan la aan la deal gareyno qaybta ku xigta waxa waaye deymanka ayagu nagu lahaayeen oo runtii qaybta ugu muhiimsan ah in la bixiyo qaybtaas waa la bixiyay runtii dadaal dawladdu ay u gashay wadamo saaxiiba iyo deeqayaal badan ayna damaanad qaadeen ayaa lagu bixiyay ilaa ayaa 1 bilyan iyo 700 ayaa la baxshay oo qaybtii ah wadamadaas hay'adahaas IMF iyo World Bank waxa hadda ku xiga qaybtii muhiimka ahayd oo ah wadamada la isku yiraahdo Paris Club oo wadamada reer galbeedka u badan deynta nagu lahaayeen Norway Ingiriiska Mareykanka Faransiiska waxay nagu lahaayeen ayadana meel fiican ay maraysaa waxaan rajaynaynaa waxa nagu xiran qodobada nagu xiran waa inaan un hagaajino maamul wanaaga waa maqleysinaan u maleynaa ra'iisul wasaaraha ka hadlaayo 94 shuruud ayaa lagu xiray shuruudahaas badankoodu waxay u badan yihiin maamulka maaliyadda la dagaalanka corruptionka sharciyadoo la dejiyo dakhliga kor loo qaado dakhliga si fiican loo maamulo qaybta ugu muhiimsan oo lagu qarash gareeyo arrimaha bulshada qodobadaas haddaan saas sii wadno Paris Clubna way naga cafi doontaa deyntooda in kastoo laga cafin haddana macnaha loo leeyahay deyntii waa la cafiyay waxa waaye tusaale ahaan hadday diyaarad runwayga ay taagan tahay oo matoorada la shido oo ay ku cararto runwayga waxa jirta point haday gaarto diyaaradu way kacdaba inay kacda leh waay ma joogsan karto in kastoo marka runwaygi aan wali saaranahay oo runwaygi aan ku cararayno critical point-gi take off kan joognaa in dhibaato dhacdo oo jidka aan ku socono wadanku ka leexdo oo mashaakil kale ay dhacaan oo ballamadii aan qaadna aan ka baxno oo dhibaato dhacdo ma ogiye ma muuqato wax in deyntaas la cafiyo naga hor istaagayo saasa marka loo leeyahay deyntii waa la cafiyay laakiin deynta cafinteedu waxay dhamaanaysaa markaan gaarno completion point qaybtii ugu horeyso decision point-gan haddaan gaarno deyntu 3 shay oo waaweyn ay wadankeena ku soo kordhinaysaa dadku waxay focus ka saaraan ama tooshka ku ifiyeen dawladda xaggeeda waxa ka muhiimsan saameynta ay ku yeelan doonto ganacsatada iyo business community-ga oo suurtagal ay noqon doonto inay maalgashi raadsadaan inay shirkado la xiriiraan inay ayagu soo qaataan deyn ay wadanka ku maalgeliyaan midalan wadankeena diasporada guryaha ay dhisteen iyo howlaha ay maalgeliyeen darteed hanti fara badan baa waxa noogu jirta midalan real estate guryo fara badan oo waxa arkaysaa malaayiin dollar lagu dhisay oo cid degan iyo aan aysan jirin ijaar yar laga qaado markii ugu horeysa waxa suurtagal noqonayso
gurigaada inaad intaad damaanad dhigato bangiga LC ka furato bangiga aad sokor uga soo iibsato Brazil gurigaada kuugu yaal Garowe gurigaada Xamar kuugu yaal gurigaada kuugu yaal Qoryooley gurigaada kuugu yaal Kismaayo inaad muxuu ahaa intaad rahan bangiga u dhigato LC ku furato LC gaas aad wax ku soo iibsato waxa kale oo muhiim ah oo muxuu ahaa noo suurtagal noqonaysa mardhow inaan qayb ka noqono hay'ad la yiraahdo MIGA waxa waaye Multilateral Investment Guarantee Agency oo World Bank leeyahay oo ah hay'adda damaanadda u qaada maalgashiga hadda wadankeena waa laga cabsi qabaa political risk yaa looga cabsanaa amni darra looga cabsanaa waxa suurtagal noo ah in aan hay'addaas intaan ku biirno waxa insurance aan u qaadano horta muhiimadda ugu weyn iyo faa'iidada ugu weyn oo naga soo gali doonta waa taas waaye waxa kale oo suurtagal noo ah awal waxaan ka shaqeyn jirnay samafal iyo mashaariic yar iyo inaan mashaariic waaweyn oo jidad leh oo dekada leh oo airport leh in la maalgeliyo wadankan 30 sano oo dhibaatadu ay ka jirtay waxa burbur jidadkii ku dhacay 25,000 kilomitir ayaa u baahan in la dhiso 25,000 kilomitir sida hadda aan nahay anagoo ah ma u helayno maalgelin tan ugu dambaysa waxa waaye xagga muxuu ahaay oo conditions kana kamida qodobada la isku xiray kamida in deyntaas laga qafiifiyo darteed lacagaha ama aan rays gareyn doono ama deeqbixiyaasha aan ka heli doono inaan ku jiheyno arrimaha bulshada sida waxbarashada sida caafimaadka sida amniga sida muxuu ahaay ii sheeg wax soo saarka beeraha marka faa'iidooyinka ay leedahay deyn cafintaanu waa ka weyntahay deyn la cafiyay iyo deyn la qaadanayo deyn qaadashadu kama duwana dawladdu qofka shakhsiga kama duwana hadii adiga deyn lagu leeyahay oo buugaagta laga xiro oo meel aad deyn ka qaadato aad weyso horta waa in deyntii hore aad iskaga maareyso in deyn qaadato kale iyo inaadan qaadan aday kugu xiran tahay waxay kugu xiran tahay in deyntan midna sida hore u sheegay badankeedu wuxuu u badnaay dagaalkii qabooba taangiyo hub diyaarado waxyaalo lagu soo gaday oo deyn lagu soo qaaday hadda anaga xaaladaas ma joogno waxana laga rabaa deynta aan qaadanayno inaan u isticmaalno maalgashiga inaan u isticmaalno kaabayaasha dhaqaalaha inaan u isticmaalno arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada marka deyn waa qaadanaynaa oo systemka adduunyadan ka midnahay laakiin deyntaas inay noqoto deyn dadka faa'iido u leh waa qodobada lagu xiran waa ka mid tahay annaguna waa inaan yani mataqaana mas'uuliyadahan aan hubinaa in aan yani dawlad wanaag iyo daahfurnaan iyo kala hordhigid sida danteena wixii ku jirto inaan hubino deyntaas inaysan qasaarin horta runtii maalgelinta ugu badan oo maamul goboleed gelaysa oo runtii hadda dawladdu wadanka oo dhan ay dawlad u tahay annaga waxa dan noogu jirtaa inaan maalgelin u halno warshada Isnaay Biyaasa inaan maalgelin u halno warshada Balcad inaan warshad u halno warshadaha suufka dekadaha inaan dhisno jidadka inaan furno horta meesha deyn cafinta faa'iidadeeda laga dareemi doono oo muxuu ahaay dadka noloshooda ay iska bedeli doonto maamul goboleedyada waay waana sababta aan u soo dhaweynayno muxuu ahaay arinta kale oo xiriirka ka dhaxeeya deeqda iyo deynta wadan deeq ma ku hormaro musaacado la siiyo oo deeqa oo samafal iyo ma ku hormaro wadan wuxuu ku hormaraa maalgashi dadkiisa iyo dadka maalgashadayaasha adduunka ay wadanka intay u la jecloodaan maalgashtaan waana jidkii ugu horeeyay oo arintaas lagu galay runtii waxaan ku soo gabagabeynayaa yani arinta deyn cafinta inaan la siyaasadayn runtii wax badan oo ama dawladda dhexe ama dawlad goboleedyada lagu dhaliili karaa jiro bini aadan way qofku hadduu shaqeeyo wax wanaagsan waa qabana waxna waa lagu dhaliilaa processkan dhaqaalaha iyo processkan la maray runtii waa process ka weyn siyaasad waa process ka weyn mucaarad waa process ka weyn muxaafad waa process ka weyn dawlad goboleed iyo dawlad dhexe waa sababta ayadoo khilaafaad fara badan oo ay jiraan maamul goboleedyadu ay qayb uga ahaayeen processkan dhammaantood oo stepkii ugu dambeeyay ama talaabtii ugu dambeysay ay ahayd shirkii wasiirada arrimaha maaliyadda ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleed ay isugu tageen magaalada Addis Ababa oo go'aankii ugu dambeeyay ay ku qaateen marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ganacsatada
maamul goboleedyada muxuu ahaa inta danaynaysa horumarka iyo wanaagga Soomaaliya arrintan waa arrin wanaagsan mudan in la soo dhaweeyo annaga marka waxaan la rabaa dhamaanteen inaan ka tashano sidii aan wanaag uga miro dhalin lahayn haddii anagu wanaag aan uga miro dhali weyno oo deena la cafiye kaliya aan gacmaha is saarano horumar lagu magaarayo inaan ka miro dhalino oo aan jidkaas la falay aan si fiican u qaadno annagana laga rabaa